ma doonaysaa ama ma rabtaa inaad ogaato 4 application aadan isticmaali karin isla waqtigan hadda la taagan yahay? Haa, isla waqtigan aniga kuu sheegaa. soo dhawow. Assalaamu calaykum warahmatullaahi tacaala wabarakaatuh. YouTube-ka daawanaysaan waa Mano Edit. fadlan haddaan cusubtaa page noo like garee, noona share garee, subscribe noo dheh. aad u mahadsan tahay. maanta waxaan rabaa inaan la wadaago 4 application aadan isticmaali karin isla waqtigan hadda la taagan yahay. Haa, isla waqtigan hadda la taagan yahay. application koowaad waa application loo yaqaano WeChat. waxaa loo isticmaalaa sida WhatsApp oo kale. waxaan xusuusinaa in lacag samayn kartid, lacagna u dir kartid, lacagna u soo dir karo, waxna ku iibsan kartid. laakiin dhibaato waxay ka jirtaa dhanka shirkadda. sanadka markuu ahaa 2021 ayaa waxaa la xaqiijiyey in xogta macaamiisha ay ka iibsato shirkado kale. applicationka labaad waa application lagu magacaabo JB. waa application xeer walba lagu kala iibsado xogta macaamiisha. waxaana sameeyeen diyaanaha keys ah oo aqoon loo lahayn. waxaa kaloo la ogaaday sanadka markuu ahaa 2023 inay xog badan ka iibsatay wadanka loo yaqaano China. fadlan haddaad isticmaasho iska dileed garee moobilkaada news kugu jirin. application saddexaad waa applicationka lagu magacaabo KK Messenger. badanaa dhulka Soomaaliya lama yaqaan, laakiin dhalinyarada aad bay u isticmaalaan. application marka si diiwaan gelinayso wuxuu ku weydiinayaa magacaada. marka gudaha gasho wuxuu ku weydiinayaa Gmail-kaada, email-kaaga iyo nambarkaaga. taasina waxay fududeynaysaa in la helo xogtaada iyo xogta moobilka kugu jira. muhiimadda ayaa applicationkaas moobilkaada ka fogeeyo si kugu jirin hana isticmaalin. application afraad waa applicationka lagu magacaabo Facebook. inkastoo yahay applicationka ugu caansan caalamka, waxaana la sheegay inuu iibsado xogta macaamiisha. adeegyada u dambeysay sida gambashadan ayuu soo bandhigay inuu banaan keeni karo xogta macaamiisha. sanadka markuu ahaa 2018 ayaa waxaa la sheegay inuu xog badan ka iibsaday shirkadii hore ee loo yaqaano Cambridge Analytica. waxaana sababtay arrimahaas awgeed in Apple isku rufto shirkadii hore ee Cambridge Analytica. fadlan haddaa ka hesho muuqaalkan page like dheh, noo share garee, asxaabta u dirso meel badan si meel dheer u gaaro. haddaa ka hesho muuqaaladan oo kale inaan soo badiyo comment ku soo qor insha Allah tacaala waan soo badi doonaa.